wabarakaatu soo dhawaada dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel bood joogtaan maanta waxaan rabaa inaan wax idinka tusiyo sida loo isticmaalo buugga jawaabaha imtixaanka dugsiga sare ee glasska 12aad waa picture-ka hoos kaga muuqda buugga sidaana su'aalaha imtixaanka warqad bay ku qoran yihiin jawaabahana buuggan ayaa lagu guurinayaa aad ku sii qoraysaa buugga qaybtiisa hore qaybta sare cad macluumaadka ku qoran ee buuxiska ka raba ayaa si aad u aragto halkaan sare ayaan ku soo qoray waayo buugii oo PDF ma si fiican loo arki karayo maan helin waxa ugu horeeya magaca ardayga halkaan waxaad ku qoraysaa magacaaga hebel amba hebel code halkaas sare waxba ku qorin meydid halka waxba ku qorin code ka sare code kan hoosana waxba ku qorin waxaad sidoo kale qoraysaa excuse me roll number waxaad qoraysaa roll number kaaga kaarka lagu siiyay number ku qoran ayaad halkan ku qoraysaa dugsiga ardayga dugsiga aad ka timiday ma aha midka aad ku galaysa ma aha halka aad ku galaysaa qorin marka halkan joogto dugsiga ardayga ka dhiganayso ka timid halkan ku qoraysaa xarunta halka aad ku galayso waxay u badan tahay dugsigii aad dhiganayso inaad ku galin aad ku gasho xarumo kale sida iskuulo waaweyn jaamacadaha inaad ku gasho tusaalaan haddii aad joogto Halwadaag Xamar aad ku galayso dugsiga sare ee Hayaan xarunta halkan Hayaan ku qor ama jaamacad aad ku galayso magaceeda hadba xarunta aad ku galayso magaceeda qor fasalka xaruntaas qolka aad kaga sii galayso qolka aad ku jirto banaankiisa warqada ku dhigan fiiri numberka ku qoran haddii 1 qolka glass 1 glass 2 glass 3 hadba wuxuu yahay fasalkaas aad ku jirto markaas maadada maalinka aad galayso qor halkan code kan waxba ku qorin markaan ku celisho code kaas waxba ku qorin code kan hoosana waxba ku qorin kaliya waxaad qortaa magacaaga saxda ah oo saddexan roll number-ka aad wadato dugsiga aad ka timiday magaciisa xarunta aad marka aad ku galayso haddii jaamacad Heblaaya tahay haddii dugsiga sare hebel uu yahay fasalka marka aad ku jirto ee xarunta ka tirsan qolka numberkiisa maadada marka aad galayso marka buuggan gudaha u sii gasho waxa waa warqad waa laba column u badan yahay hadaan wax laga bedelinin column loogu talagalay question numberka su'aasha ka jawaabay numberkeeda iyo answerkeeda tusaalaan haddii aad multiple choice ka jawaabayso su'aasha koobaad optionada haysatana A B C yihiin in case haddii jawaabtu A tahay qaybta answerkaad A ku qoraysaa kaliya bis inaad xataa jawaabta soo qorto muhiim maaha xarafka marka aad dooratay oo dooro lahayd ayaa halka ku qoraysaa jawaabta su'aasha numberkeeda haddii su'aasha ay directed tahay ama calculation su'aasha numberkeeda qor jawaabtii halkan ku qoraydo qoraal ama calculation idoo ah su'aasha xigta ayaad u sameeyay number kale u sameeyay kadib jawaabta ku qoraysaa sidaas ayaad u isticmaalaysaa buugga macluumaadka ugu horeeyay inaad buuxisana waa muhiim aad bay muhiim u tahay inaad qorto roll number-kaaga dugsiga aad ka timiday xarunta aad ku galayso qolka aad kaga sii gashay maadada magaceeda labada kood oo buuxinin insha Allah ta'ala waan rajeynayaa inaad buugga si sax u isticmaali doonto nasiib wacan iyo guul ayaan ku rajeynayaa